دكتور عبد الله ورنتي مدة إن كيش كنجري معها مركز شركة كجرني حرجينا يا إناد شيء كذا شيء كنجري وحوي هاي أتكار كدونتان مركليها ولحق الله معها برنامج كان أسرع هنا يا labada maalin oo maanta iyo biriha ducaleedmo furitaanka marka laga tagay soo xiridaan xiri doona inteena kale anaga mustamiiciin kiraama ku jirna safkan dhinac ka soo fariisan doona ducaleedmo casharada wax ka dhigeysan doona maanta runtii ani waxay tahay maalin weyn maalmo badan oo soo marnaa jirta maalin waxaan soo marnay xafiiska muxuu ahaa aniga iyo Cabdinuur markaas aan magacawneen oo soo joogay maantayna waxaan ka hadlaynaa sanad ka bacdi sanad iyo 2 bilood ka bacdi waxaan maanta joognaa inaan inteynaan oo ah agaasinkii madaxiisii meesha ka dhaaqay wadnihiisii lagu ku socon lahaa qofkii dhammaan ee wadi lahaa agaasinka oo anaga ah oo meesha isku nimid oo tahay waxaan isku nimidna agaasinkii inaan ka muxuu ahaa aan ka hadalna ka sheekaysano waxay tahay farxad runtii weyn ay tahay ilaahna ku maasan ina muddo kooban oo sanad gudihiisa ina meesha isku imaano bishaan oo kale maarso wax xusuustaa waxaan ka shaqeynaynay isla hotelkan qol ku yaala qolka 109 heshiiskii keenayay in waxbarashada ku wareejiyo ayaa xilligan oo kale diyaarintiisa bilown marka in maanta oo taariikhda maanta aan joogna la bilaabay heshiiskii iyo sidoo noqon lahaa oo agaasi maxamed waa taqaanaan maxamed cabdulqaadir agaasi guuda barashada hore runtiina hadda wixii hadda aan ka hadlayay ayuu muxuu ahaa qayb weyn ka ahaa odayna uu ahaa in bishaan oo kale ahayd bishii aan heshiiskii ka shaqeynaynay agaasinka si waxbarashada loogu wareejiyo marka aan qodobkaas marayaa marka xumalnayaa meel oo fiican oo soo aad munaasabad ku soo aad marka runtii asaga oday noo ahaa hogaamiye noo ahaa maadaama asuu khibrad u leeyahay waxbarashada dalka iyo federaalka iyo waxyaabahaas guddi 8 ahayn 4 wasaaradda iyo 4 gobolka asagana noo ahaa muxuu ahaa hogaamiyaha heshiiska guddiga heshiiska diyaarinayay marka anagoo joognay xilligaas oo bishaan oo kale ah oo walwalkeen ahaa see wax maamuli doontaan wax xusuustaa su'aalaha uu adkaa agaasi maxamed weydiin jiray oo markastaba hadda isku daya inaan ka jawaabo wuxuu dhigi jiray meesha 4 isku la wareegaysaan 5 xabo la wareega soo tasmaana ismi 5 xabo la wareega 5taas ka soo dhalaala ka bacay 5 kale ku dara markaas waxaan ku yirinayo agaasi waxaan ku yirin meel wax isku daay meesha ma taale waxay dhan lagu wareejiyo ana maamulanaya wax xusuustaan يعني بيل وحن بلون بيشان مارسو 2020 أيام بلوناي الشركة سجال كذي وحن ضمناي هشيسكي هوشيسي جودي يعني وكذا ماذا شري تونكي بيشي أبريل 2020 مركز سؤالها هو أتكا وهي سواء معمول تونتان سواء سمين كرتان حتى مري قال كنتو كهر نقول كهر نحريجري عبد الرحمن هذا وكنا قناة وحن سواء معمول تونتان ما لوكاديس ما كيريس عبس نوعاسا ku jirtay waxaan rajeenayaa cabsidaas inay jirto hadda iyo inay xogaa yaraatay inay meesha ka baxday idinka ka jawaabi doontaan marka idinka la arko idinka ka jawaabi doontaan marka runtii farxadaas yani gooni ay tahay maanta intaano dhalinyaro isku jirta dhalinyaro rakaag dhow wataay dad badan waxa jira muxuu ahaa madaxa umadow yahay jira marka rag badan meesha waxa jooga dhalinyaro ah iyo rag dhalinyaro ka dhow intii naasba oo isku jirta agaasimayaashii la taliyaashii in 2 maalin meeshaan isku imaano wax muxuu ahaa habeen intii lagu riyado lagu soo kacay ma wax waqti soo qaatay muddo laga soo fikiray marka agaasi maxamed aad soo rabaa inaan soo saaro muxuu tareenka agaasi maxamed meeshaan dadka isku yimid inta uga jeedid waxa waaye waa agaasimayaashii waaxaha ee agaasimka waxbarashada gobolka iyo la taliyaashoodii waa 9 agaasime hal agaasime naga maqan xanuunsan Turki naga aaday kusima uu leeyahay waa 9 agaasime iyo 10 la taliye dad hadda dhimana jira soo socda marka 10 la taliye iyo 9 agaasime iyo aniga ugu dar marka agaasimayaashana waa 10 la taliyaashana waa 10 inteena waxaan isugu nimid inaan ka tashano maanta iyo biriha duca la idmo agaasinkii la soo dhisay iyo heshiiskii soo galay iyo hawlihii la soo qabtay xagee marayaan horta maanta xagee joognaa maxaa noo qabsoomay maanta xagee joognaa biri xagee u soconaa
xagee rabnaa inaan sii aadno xagee ka rabnaa ayaan rabnaa meeshaan inaan labada maalin ku qaadano waxaan rabnaa labada maalin meesha aan joogno markaa biri xiranayno maxaan rabnaa inaan xambaarno maxay tahay waxaan qaadayno maadaama intayna meesha iskugu timid aan sheegay inaan ahay qofka dhammaystiran oo agaasinkii u taagan qof kastoo naga mid agaasinka u taaganyay marka beri markaa meeshaan dhammaysan oo shirki nala soo xiro maxay tahay maseejka aan rabno inaan qaadno waxaan rajaynayaa maseejka aan qaadi doonno wuxuu ka soo bixi doonaa bandhigeenna iyo tiktoorka muxuu ahaa wixii nagu dara niqaashkeenna halkaas waxaa nooga soo bixi doona maxaan rabnaa inaan la laabano waxaana loo dhiibay agaasin dadka uu maamulahaya ay ku dhow yihiin nus milyuun half milyan dad ku dhow ayaa na la yidhi dadkaas maamula marka dadkaas inaan maamulno habkaan u maamuli lahayn iyo waxaan samayn lahayn ayaa ka rabaa inaan kala baxno meeshaan du'aaleedno waxaan rajaynaa inay ka soo bixi doonaan hawl qurux badan muxuu ahaa aragti fiican iyo himilooyin aan dadkaas nusmilyuunka ah aan sheegaynay aan wax ugu qaban doona iyo inta kaleoo na sugaysa du'aaleedno marka mar kale farxad ii tahay si taymkaa u ilaaliyo maadaama ustaad maxamed yimid runtii kana soo shaqeeyey maanta dadka meeshaan fadhiya odayaashii u ah uu ka mid yahay aan kelimad kooban siinaya du'aaleedno ka bacdina sultaan cabdullaahi ku wareejiyeyna barnaamijka bilaabayna hawsha hadda maanta bilow maaha waa soo shaqayseen laakiin maanta waxaa maraysaan meel haddii aad loo shaqeeyo noqon karta maaragtay laba kaclayntii hawsha haddii ilaah yiraahdo insha allah waxaan u malinayaa hawsha maanta la sugin inay tahay in la sameeyo ama laga baaraan dego ama erga la isticmaalo muxuu ah qaada dhiga miya bambaxa waa horta isla qaada dhiga qorshe sanadeedka waay marka qorshe horta dadka inay qorshe leeyihiin wax weyn waay waxaan isla laba shay dadka muhiim u ah dadka horta inay ujeedo leeyihiin iyo qadiyad inay leeyihiin oo ay u shaqeynayaan u dagaalamayaan qadiyadiina waxaan isla inay noqon karto inay dad qiiro leh oo dhahaya gobolka banaadir ama muxuu ahaa banaadir sida la rajaynaa state inay waxbarashadeedu dadka ka hormarto oo ka saar marto inaad u shaqeynaysaan oo qiiradaas idinku jirto oo tan labaad idinku jirto waa state ama gobol laga tegay oo daahay oo states kale ka hor dhismeen qaybta waxbarashada aan weli saan loo dhisin marka laga hormaray waaye marka haddii qiiradaas idinku jirto waxay noqon kartaa qadiyad oo aad ku shaqayn kartaan ama muxuu shidaal aad ku soo jeedi kartaan habeenkii noqon kartaa oo aad u shaqaynin kaliya mushaaraad meesha ka qaadataa intuu leeyahay maxaa ku soo galay laakiin qadiyad u shaqaysaan insha Allah taas waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysan doontaan insha Allah taas marka waxay ku sii dhisan tahay qorshe inuu jiro qadiyadaan leenahay ujeedaan leenahay waa ordaynaa waxa ma tarayso ujeedooyinkaas oo habaysan waa in qorshe ku dhisan yihiin oo qofkii qorshihii u qaybsan yahay bilo u qaybsan yahay usbuuciyo maalmo u qaybsan yahay oo qof kasta uu yaqaan usbuuci meeshuu gaari lahaa taas marka waxay sii keeni kartaa iyadana inay sii shado barnaamijka oo energy badan uu soo galo marka waxaan aniga idin leeyahay barnaamijkiina waxaan rajayn inuu samaysan yahay miya qaada dhiga macnaha samaysan yahay laakiin waa la fiirinaya kale inay noqdaan qorshaha inuu noqdo qorshe la gaari karo inuu noqdo wax la qaban karo haddii xamaasadda qaado aad iska qortaan waxyaabo aan la gaari karin waa weyn waxba ma tarayso wax la qaban karo waa inay noqdaan isla markaasna la qaban karada waxaa laga wadaa in wax iska fudud oo tilaabo yar ah ma aha wax uu ku jiro wax la qaban karo laakiin uu ku jiro muxuu ahaa waxa la yiraahdo challenge waa inuu ku jira xogaa waa qaban karnaa laakiin haddana culaysaa ku jira saas oo ujeedadu ku fiican tahay laakiin ujeedada iska fudud oo qolkan ka baxaya waa soo noqon aan ahayn inay noqoto laakiin haddana la gaari karo ujeedada labaad oo aniga kulli idinka hadla darmay waxa waaye inay noqoto wax loo baahan yahay wax muhiim oo loo baahan yahay inay tahay inaan shaqada iskaga badso iskaga dar wax waa la qabtay hal dhaho inay noqonin wax loo baahan yahay rasmi ah oo ujeedooyinkiina waa weynaa meel kamid ah buuxinaya waa inay noqdaan marka idinkana waxaan idin leeyahay haddana waa wararkan idinka hay inaad aad u daashaan waa la socdaa
inaad howlo badan qabateenna waa la socdaa waxaan rajaynaa inaad ka sii badisaan oo waxyaabo la taaban karo ay ka soo baxaan insha allah howsha lidin dhiibay howl sahlan ma aha waa howl dhib badan waa howl maaragtay angles badan ay wax kaga dhegdhegan yihiin laakiin haddana haddaad dadaashaan insha allah oo ilaahay tala saartaan guul waa gaaraysaan insha allah oo sida la sheegay isku kalsoon shaqo wadaaga ah shaqada ka dhaxayso iyo siday u doodeen say wax uga dharaandhiriyeen hawshii loo diray runtii aad aan ugu faraxsanahay facilitatorkana runtii nin wuxuu ahaa oo khabiir ah oo runtii aad uga soo shaqeeyay barnaamijka aadna looga faa'iidaystay tan saddexaad waxay ahayd sida ay sheegtay gabadha muxuu ahaa sida qodobadii loogu heshiiyey oo aan ahayn muxuu ahaa dood iyo cod lagu kala adkaaday aan ahayn oo laakiin inta badan lagu soo dhameeyey consensus aadaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan qodobo yar soo qaato oo baraarujin ah waxaan rabaa inaan tiimka gobolka inaan dhaho waxaa tihiin horta tiim waxaa tihiin kooxna waxaa la dhahaa wadad isla jiro oo guul wada raadinayo halgamaya sida kooxda cayaaraha oo kale mararka qaarkood qof gool dhaliyay iyo qof aan dhalin dhib male inay gool dhaliyaan oo kooxda dhalisaa dan u ah oo kooxda guulaysato marka inay idin dan tahay inaad kooxdii inay guulaysato inaad heshaan insha allah marka teamworkigaas wax badan oo idin tari karaa niyaddana waa idin dhisi karaa waana isla shaqayn kartaan marka waxaan idinku baraarujin lahaa hadda kahor waxaan aqriyay book yar oo la yidhaahdo booklet yar oo la yidhaahdo the 17 indispensable laws of teamwork aad marka aniga muhiim ilaha teamworkiga macnihiisa iyo suu macaan yahay iyo sida wax soo la qabtaan iyo sida saas hadii loo shaqeeyo runtii wax badan waa gaari kartaan insha Allah teamworkigaas laba tusaale aan ka siinaya intaan ka xasuusto mar aan akhriyay hal tusaale wuxuu ahaa teamka waxay u baxayeen meel soo bandhigaan barnaamij soo bandhigaan waxaana bandhigaya ninka uu ah team leaderka soo bandhigaya team leaderka marmarka qaar waa xanuunsadaa hadduu xanuunsado hadalkii ma karaayo barnaamijkan waa ka fashilmaya markay meeshii tageen oo la fariistay ninkii hogaamiyahana waa soo iloobi daawadu qaadan lahaa markay meeshii tageen oo la fariistay oo hawshii la geli rabo ninkii xanuunka xoogaa kusoo bilowday nin kamid ah istaagay wuxuu anaa wada daawadii hala siiyo gudoomiyaha waa la siiyey gudoomiye maasha Allah waa caafimaad shaqadii waa qabsadeen waana ku guuleysteen marka ninkaas teamka ka tirsan sidoo uga fakiray cilada teamka ku imaan karta soo uga fakiray oo team leaderka ciladiisa uu og yahay wax ka imaan karo og yahay daawadiisa uu soo qaatay asaga miska fakirin wuxuu ka fakiray team leaderka wuxuu uga fakiray si loo guuleysto uu ka fakiray tusaalaha labaad oo isla buugaas aan ka soo qaatay waxa waa team work ku saabsan waxa kamid ah tusaale ah nin Mareykanka ciidamada ka tirsanaa oo dagaalkii Vietnam ka qayb galay diyaarad wuxuu ahaa pilot oo ahaa diyaaradaha wax duqeeyo waday diyaaradiisa waa la soo riday waa la toogtay diyaaradda waa la soo riday asaga marka waa ka booday wuxuu qaatay parachute ku booday marka parachute waa ku badbaaday si fiican ugu badbaaday asaga lama qaban meel kale ku dhacay diyaaradda bisa meesha ka dhacday marka ninkii waa badbaaday waa iska joogay Mareykanka ku noqday asagoo maalintan Mareykanka joogo oo meel hotel bar ka qayb galay cashay wax u socday oo xaaska la socoto nin meesha ku arkay ninkii ayuu markaas ma garanaysaa wixii rumayay ma ku garanaay waxaan u yiri ninkii wuxuu ahaa parachute-kaagi maalinta aad ku soo boodo ku badbaaday ninkii waxaan ahay soo cabeeyay oo ka shaqeeyay markaas meesha isku boodeen labadoodii sababta waa ninkan inuu badbaado ninkan ka shaqeeyay gaar ahaan iskuma yaqaanaan ninkan wuxuu qaabilsan inuu wax soo duqeeyo kan wuxuu qaabilsan ninkan badbaadiyo waa rag isku xiran marka teamka markana saas oo kale iskula shaqeysaan oo ninba ninka kale uu parachute-kiisa u cabeeyo soo u badbaado ama guul u gaaro
ama nin kale daawadiis u soo qaado marka waxay u baahan tahay teamka inuu wada shaqeeyo marka buuggaas isagoo xataa soft waa buug weyn ma buug yar buug la waaye laakiin waa ila fiican yahay xataa waa ka heli kartaan muxuu hadaa internetka la weydiiyo waa la heli karaa in la akhriyo sababtoo wuxuu kugu geysan magelinayaa sida ay teamka wada shaqeeyaan ama wada shaqeyn teamka say u fiican tahay iyo waxyaabaha ka dhalan kara insha Allah marka labaad waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo qodobka isugu timaadeen oo ahaa maaragtay qorshaha hawl la qabanayo qorshe kama soo harto qorshe waxaa la dhahaa qofkii dadkii aan maaragtay aan wax qorshaysan waxay qorshaysteen failure-koodii inay dhacaan ay qorshaysteen he who does not plan is to fail dad waxa qorshaysan indirectly waxa qorshaysan dhacdid waa dhacay markaas marka wanaaga isku xirnaantiina isjaceelkiina wada jirkiina horumarka kulli waa fiican yihiin laakiin doona qorshe jirin oo habaysan oo meel ku qoran oo la og yahay oo laga shaqeynayo la hiigsanayo doona jirin horumar lama gaari karo marka tan labaad waxaan leeyahay qorshaha aad ha looga shaqeeyo qodobka saddexaad oo u dambeeya waxa waaye ilaahayna tala saarta oo idinka kalsooni kaligidaas ku qaadina ilaahay tala saarta markaas kadibna isku kalsoonaada meel kale ha fiirinina sida hadda Cabdullaahi tusaale siiyay Dr. Cabdullaahi waxa haysataan ku howlgala inta haystaan ku howlgala wax kale ma baahnidin inta haystaan ku howlgala run ka sheega dacad uga shaqeeya qodobkayga ugu dambeeya waxa waaye wax yar bahan noqotee wax la taaban kara soo saara wax badan oo fara badan oo isku qasan waxa ka qurux badan 2-3 shay oo la taaban karo in la soo saaro gobolka hadii sanadkan laba qodob 3 qodob hagaagto laba kale ka daba hagaagto waa hagaaga insha Allah hor u socda laakiin hadii sanadkan 20-30 la isku daro oo 30kii 25 ay baabado 5 ka soo harto horumar lama gaarayo wax sugan oo yar oo la hubo oo la isku raacsan yahay tilaabo ha loo qaado tilaabadana waxaan aniga aaminsanahay gadaal ha ka soo kororto horay ha u yaraato tilaabooyinka la qabanayo guusha wax la soo saarayo horay ha u yaraadaan oo horay tilaabooyin yar oo la hubo ha la qabto waa ku tababarnaysaan waa ku dhismaysaan waa ku fahmaysaan xaaladda tilaabada ku xigta xogaa ha lagu daro tan kale xogaa ha lagu daro progression ha laga dhigo saasa u kororto kadib marka dambe idinku hurdo aad sameyn kartaan waxyaabaha qaarkood oo aad soo saari kartaan waxaa idin rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa insha Allah waa markii uu horeysay sanadkii koowaad lagu jiraa saan isla yahay sanada kadib inaan isku nimaadno hadii Ilaahay cimrina siiyo idinkoo guulo badan gaaray oo gobolkii waxbarashadiisa wax badan iska bedeleen horumar la gaaray idinkan waxaan noqon doontaan haliyadii ugu horeeyay hawshan qabtaan noqonaysa taariikhda insha Allah idinku qoraya waxaan rajaynayaa taariikhda idinku qoro magacyadii ay soo baxaan maanta sawirtiin moo yaraan sama weynaan doontaan leeyahay odayaashan maanta jooga meeshan waa dhalinyarada shalay ka soo shaqeysay gobolka oo guushan soo gaarsiisay sida loo yiraahdo dhalinyarada SYL maanta dhalinyaro ma aha wax ka nool ma bale waa dhinteen laakiin wali waxa loo yaqaanaa dhalinyarada SYL marka bari dhahno insha Allah dhalinyaradii gobolka ka soo shaqeysay waa mahadsantii runtii noo sahla meeshaan aan isugu imaano labada maalina annagoo nabad qabna aan meeshaan wada joogno hawsheeni sidaan ugu talagalnana ilaahay nagu dhameeyey asaama hadda dhan iskale kadib waxaan u mahad celinayaa titoorka Dr. Cabdullaahi iyo Ustaad Maxamed Qaadir iyo maxaa inta qof oo kale nagala soo qayb gashay Cabdinaasir Leylo waxaan sheegayaa dadka maxaa korka nooga yimid agaasib Suuriyare waxaan leeyahay agaasime Maria waa mahadsantihiin maadaama aad naga soo qayb gasheen si aad maxaa noo indha buuxisaan Siciid nagu bixisaan aqoontiina iyo waqtiga noo siiyeen waa mahadsantihiin runtii aniga labada maalin meesha aan joogay barnaamijkan waxaan ka faa'iiday kow horta agaasimayaasha la taliyayaasha meeshan fadhiya qaarkood muddo kooban ay agaasinka joogaan marka inaan is aragnay iyo inaan xafiiska isku aragnay ma ahane dhiible si gudaha isku maana aqoon horta marka koobaad meeshan laftigayga ayaa dadkii ku bartay tiimkii hore waa soo wada shaqeynay muddaan soo wada shaqeynay waa is soo baranay laakiin tiimka cusub oo iga qaadan lahaa
inaan barto waqti dheer ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu fududeeyey inaan meeshaan ku barano aan ku barto maadaama ay cusbaayeen wada shaqeynna ayna sugayso taas horta waa waxyaabahan ka bartay ayay ka mid tahay labadii maalin barnaamijka noo socday sidoo kale waxaan ka bartay kana fahmay runtiina aad ugu faraxsanahay si wax loo soo jeedinayay presentationadii meesha laga soo jeediyey agaasimiyaasha say u kala tayo badan yihiin mid walba xagee kuu joogaa nin walba marka boqolleyda ii joogaan waa aqaanaa hadda laga yaabaa inta aan labada maalin ka bartay inay ugu qaadan lahayd muddo dheer hadda aqaano oo nin walba markaan gaar isku aragna dhihi karo hebel intaas waa ku fiicneed meeshaasa kaa dhiman waxaa u baahan tahay inaad intaas ku dartid ayaa u baahanta ayadana iyo meelihii suu meelahaas u gaaro xaggee ka kabtaa ayaa u baahan tahay inaad muxuu ahaa la wadaagtid ama garabkaa siiyaan ha noqotay dadka hadda nala jooga iyo hadday noqdaan cid kale intaba ayadana waxay noqotay waxyaabaha meesha aan ka bartay runtii iyo aqoon iswadaarsiga aan samaynay sidoo kale waxaa meesha laga soo jeediyey warbixinno oo runtii aad u fiicnaa u cuslaa in intaas warbixinno sidaas in loo soo diyaarin karo laftigeeda wadnaha ay xanuun waa cabsanay waxaan dhahay war meesha dadka kaas muxuu meesha kugu yimid ee martida ah Dr. Cabdullaahi iyo Mr. Maxamed Qaadir iyo inta kaleba markay dadkan wax soo jeediyaan ama dhahan ninkan iyo gudoomiye Cumar doorashadooda waa xumeed taasna cabsi ay haysay markaan meeshaan la iimaanayay haddana waxa meesha ka muuqda wada jeedaan aad runtii u faraxsanahay gudoomiyahana waxa waa insha Allah haddana uu ka warqaa barnaamijka meesha ka socda reportka ka soo baxa iyo waxna waa la wadaagi doona walaalka Cabdinaasir reportka noo diyaarinaya reportkaas markuu Cabdinaasir soo dhameeyo hadduu aleeymo ayaan gudoomiyaha la wadaagi doonaa ka horna markaan is aragno si waxaan ugu sheegi doonaa muxuu ahaa aan ugu sheegi doonaa hadduu aleeymo waxay noqotay aniga maadaama agaasinka hadda technical ahaan qof uu muxuu ahaa hogaaminaha ahay dhiirigelin fiican meesha ka hela yani runtii aad u dhiiriday inaan haysto dad aqoonyahan ah dad aqoonyahan kaliya aan ahayn karti leh dad meeshay u socdaan iyo waxay qabanayaan yaqaana ayaa ii soo baxday taasna aniga waxay u dhiirigelinaysaa xoogaa cabsi ay haysayoo maraqaan ku dhahay war hebel shaqada xagga u maraysaa maanta dhanka daba soco war hebelow telefoon u dir ama u yeer war xaggee ku maraysaa hadda waxaa ii soo baxay dad lagu aamini karo shaqada ay hayaan warqab fiican u leh ayaa meesha iga soo baxay ragga cusub waxaa ugu mahad celinayaa muddada kooban ay joogeen agaasimayaasha cusub muddada yartaa ay joogeen iyo sida isla markiiba ula qabsadeen xafiiska ayadana waxay noqotay arrin kale oo dhiirigelisay aragtida aan ka lahaa aniga iyo dadka ila talinayay meeshaan in la isku yimaado maxay ahayd marka ma waxay ahayd intii laba maalin la isku yimaado meeshaan ambar la iska joogo la iska kala taga miyay ahayd maxay tahay waxa ka dambeeya hadafka maxay ahayd aragtida aan ka lahayn waxay ahayd kow in la isbarto oo la taliyaasha agaasimayaasha iyo la taliyaasha isbartaan kow labo structure-ka aan haysano ma yahay structure-kii loo baahnaa ma wax badan baa ka dhiman ma wax yaraa ka dhiman asagana inaan ogaano meeshu noo marayo saddex in qof kasta aan ogaano tayadiisa iyo meeshu uu wax ku hogaamin karo inaan ogaano afar in ay ogaadaan agaasimayaashu maxaa isla leedihiin xaggee ku kala duwan tihiin xaggee joonta idin ah xaggee sukin xiraysa u baahan tihiin inaad markastaba ka wadaagtaan isbuucii u dambeeyey intaan soo gaarin bambaxa intii ay sheegahayay agaasimayaasha qaybo ka mid ah igu soo laabanayay culeyskaan kaana haysta waxaan ku idhi hadda ma kula xalinayay bambaxaa soo socda bambaxaasaan isugu tegaynaa halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa hawshaas arrimahaasna maantay xalkeedii waa la gaaray ayadoon agaasimihii ama labadii agaasime ee arrintaa ka dhexaysa inta u yeeray aan dhihin go'aan waa siin kara aniga markii labada u yeero oo dhagaysto waa dhihi kare saas yeel adigna saas yeel waa dhihi kare laakiin
waxaa igala fiicnaatay inay bambaxan yimaadaan la isdhegaysto la doodo meeshaas dood caafimaad qabta iyadoo la haysto in laga baxo arrinta aan rabay in laga ka faa'iidaysano meeshan ayay ka mid ahayd taasna waxaan isleeyahay waan ku guulaysanay alxamdulilah structurekeenni iyo meelihi aan isku haysanay iyo saa wada shaqayn karna maanta waa isla qaadana waxa kaloo ugu weyn oo ugu muhiimsanaa waa sanaa rabay inuu meeshan ka soo baxda waxay ahayd waxaan soo bilownay qorshihii hadda aad kulligiin soo bandhigayseen in laga shaqaysiiyo qorshahaas waxaan soo bilownay bishii September ayaan soo bilownay bishii October bishii Novemberna doctorkaan u gudbiyey Dr. Cabdullaahi issue soo marsiiyey comments nagu soo celiyey waan akhrinay waa ku celinay waxay intaasay ku egtaa waa okay dokumentiga saas u weyn ee hadeertaan arkaysay nin walba intaas oo qodob uu ka soo qortay oo waqti intaas lagu bixiyay oo bishii September iyo October iyo November iyo December 4 bilood soo qaatay waxa ii soo baxday inuu si wali dhaqan gelin seeb ku dhaqan gali karaa baan isweydiiyey waxa ii soo baxday in la qabto bambaxan ay noqoto meesha qof kasta uu ku ogaado inuu agaasin qorshe leeyahay qorshahaas uu leeyahay intaas uu leeyahay uu soo diyaarsado ka bacdi uu ogaado inuu la xisaabtamayo markii alxamdulillah qorshihii nin walba aniga inta u soo diray oo hadda ku soo darsaday qodobadiisa inta aan dhageysanayay shalay maantay qodobada ku soo biiri doona oo dadka qaar agaasimayaasha qaybo kamid ay sheegeen in yaro kooban waaye intaasna hadduu alle idmo ku dari doonaa sidaas marka agaasinka qorshaheeni uu nagu yahay official laga bilaabo biri agaasimo kaste waxa lagu xisaabtamayo ee agaasimaha qorsheynta reportingki uu noo sheegay systemka reportingka uu noo sheegay uu u diri doona agaasimayaasha ee laga sugay waxa waaye qorshahaas intii aad ku lahayd maxaa ka qabatay xagee ka gaartay xagee ku maraysaa wax dambe intii la iska soo fakara agaasimaha guud intuu caawa ku soo fakaro biri amarkaas hal la qabto ama agaasimaha waaxid uu iska soo fakaro wuxuu raba iska sameeysta way dhamaatad waxay noqonaysaa qorshahaas in la daba galo asagaas lagu shaqeeyo wixii qabsoon waayaan isla aragno wixii qabsoomana aan isku hambaliyana hadda marka arintaas waxay arinta ugu weyn oo jeednay qorshahaas marka aan rabaa inaan xogaa report kale in ka siiyo dhamaantiin si aad la wada socotaan qorshahaas aan dejinay agaasinka u sameynay waa qorshe aad u weyn lacag badana budget badana u sameynay waxaan isweydiinay war qorshahan intaan la eg sidee u fulin kartaan lacagtan se ku baxaysa hay ka keenaysan waxaan go'aansanay in lacagahaas meel badan aan ka raadsano waxay ogtihiin dawladdeena iyo wadankeena inuu kaligiis iswadin ay ku xiran yihiin meel badan iyo hay'ado iyo dhinacyo badan ku xiran yihiin qorshihii waxaan u dhiibnay nin expert ah ayaan u yeeray ayuu dad akhyaara oo saaxiibada iga caawiyeen waan tusay kabacdi wuxuu isla qaadanay inuu ka soo dhigo English una soo diyaariyo hab haddaan adduunyada u bandhigno ay nala fahmi karaan annagoo la socon dukumenti annagoo aan la socon inuu noqdo dukumenti markii cid kasta oo ajnabi ay akhriso fahamta agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir wuxuu yahay iyo baahida uu sheeganayo inay tahay baahi jirta alxamdulillah wuu soo dhameeyay gabagabay maraysa maalmaha soo socda oo biri ay kamid tahay team kamida agaasinka teamka ay qusaysa xafiisay qusaysa dhameystiri doona waxaan ku talagalnay markuu dhamaado in wasaaradda iyo cid walbaba aan la wadaagno hay'adaha iyo cid kasta aan la wadaagno uu noqdo hay'adda u horeysay sababta KSA-ga iyo SB-gi ma dhawa markay ugu soo horeyso September October inuu soo bixi doona la rajeenaya marka maxaa agaasinka inta ka hor qorshe u siyaa marka waa qorshihii dhamaa ee agaasinku adduunkii dibad iyo gudaba oo wax ugu raadsan lahaa soo wax uga qabto waxbarashada gobolka Banaadir intaas markaan si guud aan u soo afmeero waxaan rabaa inaan ku daro laba qodob agaasinka
agaasimayaasha iyo la taliyayaasha maalin dhaweyd waxaa shir Zoom aan la galay xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybta arrimaha bulshada gaar ahaan qaybta waxbarashada ayaan shir Zoom ay ugu yeereen waxaana markaasi warka uu ku yimid COVID-19 ka iyo iskuulaadka xiran ma la furi karaa mise lama furi karo shirkaas wuxuu socday 1 saac iyo 20 daqiiqo ayuu socday 50 daqiiqo kamid ah xumalinahay ana hadlaayay waxaan ka hadlay COVID-19 sanadkii dhamaaday fasaxii markii waxbarashada la geliyay iyo dhibaatooyin ka dhashay iyo meesha la soo iyo meesha iskuulaadka la furayay intii u dhaxaysay wax alla wixii rabood waxbarasho oo dhacay maca imtixaanaadka ku jiraan ayaan ka hadlay waxaan ka hadlay imtixaanaadkii lagu dhacay iyo dhibaatadii ka timid iyo agaasinku soo uga jawaabay markii uu waxbarashada la wareegay si aysan dugsiyeedka hadda socda aysan arrinta u soo laaban haddii soo laabatana uu ka jawaabi karo wixii u soo laabatay waxaan ka hadlay agaasinku laftigiisa muxuu yahay muxuu qabtay inta uu jiray xagee gaaray muxuu qabtay waxaan ka hadlay COVID-19 ka labadii isbuuc ee iskuulaadka waxbarashada la xiray muxuu saameyn u yeeshay waxyaabaha la yaab waxa kamid ah waxaan ku yiri maalinta waxbarashada ku dhawaaqday inay xirmayso waa maalintii lacagaha la bilaabi jiray in ardayda laga qaado labadii isbuuc ee lacagaha laga qaadi jiray ee dadka Soomaaliyeed dibadda joogana ay lacag soo diri jireen dadka shaqaysto wadanka joogana ay ardayga iskuulka ay lacagta geen jireen ay waxbarashada xirteen markay xirteen hadii waalidkii waxa way wax ka darana u yeelaba waxyaabo kale lacagtiisa ku bixiyay iskuulaadka lacag ma taala marka waxbarashada dhan jaamacad iyo iskuul kullu lacag ma taala waayahay marka waxa laga carinayaa 2 qof iyo 3 qof maalintii COVID-19 ku dhimanaysa inta kaajada ku dhimanaysa ama halista galaysa xagee la aadaya runtii waxay la yaabeen yacni maalinta ay wax ku aadiyeen iyo si halis u ahayd hadduu sii xirnaado maxaa dhici kara waxaan sheegay in sanadkii hore waddanka oo dhan 84 iskuul ay xirantay u dhiganta arday 22,000 arday u dhigantana ay waayeen meeshii wax ku baran lahaayeen iyo macallimiin intaasoo kale dhan gobolka Banaadir markii loo sii fiiriyana 54 iskuul ayaa ka xirantay 84 kamid ah 54 kamid ah gobolka Banaadir ahaayeen macallimiinta ardayda dhiganaysana ay numberkooda uu dhowr 10 gaarahay macallimiintooda intaas gaaraysay shaqaalaha ku noolaa waxa ku noolaa waxay la yaabeen marka oo mucjiso la noqotay agaasinka oo waxbarashada lagu wareejiyay bishii Agoosto 2020 muddadii yartay ka horeysayna asagii isdhisayay iyo imtixaankii bas uu qaaday iyo maanta xilligan la joogo iyo informationka aan siiyay oo agaasinka uu sameeyay meesha ay marayso runtii waxaas oo dhan markii la qabanayay far kaliya fool ma dhaqdo qof kaliya ma qaban wax Cabdiraxmaan kaliya intuu soo istaag uu qabtay ma ahayn waxaan ka inkugu hambalyeeynaya oo idin sheegaya agaasimayaal iyo la taliyaashaba waxa aan hayno ee ummaddu is ogeen oo qofkii u sheekaysan leeyahay niyo Cabdinaasir hadda u dambeeyay hadda intaan shirka xiritaankiisa aan galin Cabdinaasir wuxuu weydiiyay ani agaasinka inuu saan yahay ma aaminsanba qof shishe maxaa ka rabtaa Cabdinaasir loo joogo yiri agaasinka inuu meeshan joogaba ani ma ogeen waxaan meeshan dhex yaala dadka ma u sheegtaan nin kale himidoo taala joogan kala hadlayay warbaahinta agaasinka see loo maxaa loo kicin karaa oo aan kala hadlayay sidii loo sameyn lahaa warbaahinta agaasinka marka uga sheekeeyay oo yiri niyo maxaa rabtaa inaad baahisaan uu weydiiyay markaas waxa uu sheekeeyay waxa aan hayno marka wuxuu yiri aniga niyo waxaan ka shaqeeyaa raadiyaha maxaa qaranka intaas sana ka shaqeynay waxa aad ka sheekeynaysid oo meeshan yaala wax og lama arko marka alxamdulillah waay marka qaar koomta aan loo ogeeyna wax badan lagu qabtaa fiican waxaas la qabtayna runtii idinka qabateen ragga hor u soo shaqeey ragga cusubna ku soo dhawaada waxaan rajeynayaa ina meeshaas ay noqoto maanta hal sano gudaheed meeshaas la marayo markii aan joogno inaan gaarno bambaxa ku xiga waxa la soo bandhigaa ay noqoto waxaas 10 laabkeeda ducaleedno aan soo gaabiyo warka macallin baahan jiray waxa warkii waa bataa marinaya laakiin runtii qiiro badan ay ugu jirta oo markaan arkay labada maalin wixii meesha ka dhacay wax la dhameyn karo runtii ma aha wada shaqeynta agaasinka
waxaan lagu soo gaaray runtii wada shaqaynta ahayd wada shaqayn ay la socoto lahaansho wada shaqayn la socoto lahaansho in qof kasta inuu asaga agaasinka leeyahay uu aaminsan yahay waxa aad leedahay waxa uga shaqaynaysaa nilba gurigiisa iyo wixiisa u gaarkaas uga shaqeeya hadda agaasinka looga shaqeeyo wax ma halaabayaan lahaanshahaas inaan sii badino ayaana la karabaa waxaa noo yaalla haddaan annagii 2 maalin meeshaan ku soo xaroonnay oo fahmnay nin kastoo naga mid ah ama la taliye iyo agaasimihiisiiba ay fahmeen waxa ay qabanayaan iyo hawsha u taalla dadaa naga dambeeya 146 qof markii laga jaro 20 qof ilaa macaani markii lagu daro 10 agaasimaana iyo 10 la taliye maxaa soo haray 126 qof 126 qof ayaa wixii naga rabtaa sida annaga shaqada u fahmnay inta u fahamsiino inay shaqada qabtaan ogaadana shaqada cidda qabanaysa waa ayaga masawirkii uu Dr. Cabdullaahi halkaa nagu tusahayay oo hoos dadka wax ku taagnaa gruubka hoose ku taagnaayeen gruubka hoose aan ku taaganahay waa 126 qof waay 126 qof wax naga rabtaa inaan meeshaas oo kale soo gaarsiino shaqadana saas u qabtaan lahaanshana ay fahmaan waxaa cusana markaa ka rabaa agaasimo kasta in wixii aad fahamtay inaad waaxdaadii intoo la fariisatid horta u yaraan maalin ama saacado aad ku shubtid wixii adiga aad soo fahamtay shaqadina maadaama adigu aad fahamtay adigana aad fahamsiisay madaxqaybidaadii sababta dadka shaqada laga rabo ayaga waay waxaa arkaysaa laga yaaba qaarka madaxqaybeed hadda aragti oo leedahay maxaa meesha u taagan tahay shaqada ma hayo ku leeyahay waxyaabaha keeno bambax inaan sameeyno war madaxqaybeedkii hadduu yiri shaqadii ma aqaano kulli agaasimuuna ma yaqaano markii ilaa madaxqaybeedkii qofka shaqeynaya aniga ma aha agaasimiga guud ma aha waa agaasim waaxeedkii saasa waxay keentay marka in bambaxa la yimaado oo agaasim waaxeedkii la fahamsiiyo asagii shaqada suu madaxqaybeedka u fahamsiiyo waxaan rajaynayaa inaysan cudurdaar jirayn oo ah madaxqaybeed kasta markii la weydiiyo maxaa taqaanaa shaqadaadii caawa inuusan dhahayn shaqo ma haysto inuusan dhahayn intaas waxaan rajaynayaa inay saas noqon doonto tiktoorka shalay waxaan ka wada hadalnay 2 dukumenti oo aad u waaweyneed inaan meeshan ku akhrin karin waa dukumentiga ah habraacyada iyo dukumentiga ah teoriska mas'uuliyaadka shaqada agaasinka madaxqaybeeda marka waxaan isla qaadanay tiktoorka maadaama aan dhinacna dhameynay in asaga u soo dirno asagu uu insha Allah maalmo kooban uu isha soo mariyo noo soo celiyo haddii comment uu ku soo daray commentigaas anaga ayaa ka fariisayna shirkeeni muxuu ahaa ama shirdiga ha noqdo ama keen isbuuclaha ha noqdo ayaa ka fariisayna hadduu aleedno commentiskaas isla xaleena saas oo official ugu noqon doona saas ku shaqeysan doona marka dokumentiyadii waxaan u soo diraynaa tiktoorka insha Allah waxaan rajaynayaa muddo kooban inuu ku soo dhameeyo waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda laga dareemo xafiiska isbedelka waxbarasho iyo shaqo iyo bambaxa wixii ka soo baxay aad ma santii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh